السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب كاودوايو وآمن الإيمن فيلم أوفيشيال وحني بلا بربع أصحابي قصة عجيبة أو كدعضي الصومالية كسمايو مقدشو كو كسمايو يكوك بالأبنة كسمايو مصر كينيا أمريكا UK iyo Kenya iyo waxwaaye Boosaaso iyo Dubai adi waa qiso cajiib ah waa family weyn maasha Allah kan tabaarak qisadaas waxaa la dhahaa qiso xanuun badan waaye waa la soo wadaagay maadaama qiso soconaysa muddo dheer ay ka socoto weydii waxaa rabtid shankaroon iyo shacnigeeda qisooyinka dadka markay ay keenaan dadka magacyadooda qariyaa familada ii dhiibtay qofka ii dhiibtay gabar ii dhiibatay walaal ah familkeeda waa waxay ka sheekeynayso oo qisada ku dhacday waxaana la dhahaa qisada libaaxa duqoobo daanyeerta ku dheesho qisadaas ha lala socdo ilaahay siduu ugu ogyahay qisooyinka markii la ii dhiibo inaan wax ka kala tagmee wax ma ku dari kari mana xawaajiyen kari laakiin magaca anaa u baxsado magaca waayo muhiim waxaa ah qofka sirta markuu ku dhiibto walaalkaa ah inaada sheegin magaciisa inaada sheegin qabiilkiisa inaada sheegin meesha uu ku nool yahay laakiin qisada inta meelood ay ka dhacday ma sheegi karaayaan dhahay kolleyba iweydii waxaa rabtid oo kusoo sheer garayn doonaa walaalaha biliis waxaan iga codsanayaa si naxariis leh youtube-kaas Amina Dheeman Family Official inaad gelisaan meel kasta qisadaas walaalo badan oo dhibaataysan iskareebka saara markii la dhahayo ana faa'iido ii tahay waqtiga isi soo geliyaa qofka walaalo ii soo dhiibta si qisadiisa ay u horumarto waxaan dhahay youtube-yiga waaweynaa jira ma u geysatay abaaya ani jaanis ma hayo waxay tiri abaaya adaan kugu kalsoona oon ku garana ii geli marka insha allah qisadii caawa qaybta koowaadaan ii bilaabaya 1 2 3 nimo iniguma qoranayo sida shankaroon shacnigeeda ay u socoto qof walba xalqada uu rabo halkaas uu kala soconayo waayo waa qiso cajiib ah waa qiso ani aad ii xanuujisay oo aad dadka iska calool jilicsanahay marka insha Allah saanay ku bilaabanaysaa family aad u balaaran ay ahaayeen adduunkan kala roorkan iyo carabkan ayaa dhibaato dadkan Soomaalida u keenay cid way soo carareen Soomaaliya waxay u carareen xaggii Boosaaso haddana way ka soo gudoomeen way fahmi waayeen kismaayo soo guurin kismaayo markay imaadeen kismaayo haddana way ka soo baxeen Kenya galeen ay qaxooti ku noqdeen Kenya qaxooti markay ku noqdeen muhiimadaan inay sheega Kenya markay qaxooti ku noqdeen oo ay ku rafaadeen waxaa dhacday in ay kala dhoofeen qisada markay kala dhoofeen oo gabadha qisada ii sheegtay waa walaasheed qofka laga sheekeynayo waa gabdho walaalo ah iyo wiilal family weyn waay maasha Allah kan tabaarak aabood iyo hooyadood iyo walaalood iyo eeyoonkood awooyinkood eedooyinkood habaryarood abtiyaashood kulli way wada nool yihiin markaas wixii dhinta hadda Allah u naxariisto wixii noolna Allah isku barakeeyo waxaa dhacday gabadha qayb ka mid ah way dhoofeen leemana heleen si ay ku baxeenba markay dhoofeen gabadha qisada keentay waxaa dhacday tiri walaalay gabadha walaasheen ah way dhoofisay dadkii oo dhan macnaha dhoofis maamadii way barakicisay oo waxay tiri hooy aabbo soo baxa sponsor iyo waxbaan ii qabanayaa Allah u naxariisto aabbood hadduu dhintay way soo baxeen adiga siday u barakacayeen adiga adduun weynay kala galeen waxaa dhacday in ay gabadha damac uu galo libaaxa duqoobo daanyeerta ku dheesho macnaha wax waaye hooyadii markay waayeel noqotay ee qof weyn noqotay gabadhii waxay ku bilowday dheeldheel waalidka 3 jeer ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri jannadu waxay ku jirtaa hooyooyinka jannadu waxay ku jirtaa hooyooyinka qof kastana waalidkiisa meesha uu dhigo ayuu ilaahay cunugaaga ayaa ku dhigaayo
marka qisada muhiimadeeda waxa waaye gabadhii wax alla waxay u qabatay reerkooda iyada waxay u qabatay iska daa lacagta iyada ku dhooftay lacag familka aabaheed iyo hooyadeed iyo reerka ay lahaayeen ahayd. waxaa dhacday inay maamada maskaxda ka qabsato, inay maamada ay abiyuusto, inay familkeeda ay waxyaalo badan oo la filanaynin dar iyo duurba waxay tiri walaale waxaan filanaynaa aa ka soo baxo. walaale waxay tiri waxay samaysay anigaas oon kuu sheegayo qisada ay tiri waa iyada qisada anigaas kuu sheegayo in ay hooyaday dhoofisay rabtay. waxay tiri ha soo dhoofinin, maxaa u soo dhoofinaysaa? mid kale ilmihii ay ka dhigtay, mid kale waxay rabtay iska samaysay. waxa waaye waaridka markuu dhalinyaro ama qofka youtube-ka aan daawado waaridka markuu ku jecel yahay ha ka faa'iidaysan, ha isku dirin dabka. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiisyo badan ayuu wuxuu ku sheegay in waaridka haddii uu labadiisi ilmood kala jeclaado ay dhib tahay. haddii waaridka waxa kaloo la sheegay waaridka in uu baari yahay oo ilmihiisa asaga iskala jeclaysiiyaan, laakiin waaridka haddaad dimindaabiyeysid ama wax tafaaful aad ku samaysid yowm alqiyaamana way ku sugi, ama dirdiraale ilmihiisa kale aa ku dirdirtid. dabka waa la damiyaa. xadiisyada rasuulka qofka hadduu diinta dhegaysto uu cilmiga dhagaha xataa ka dhagaysto waxyaalo badan ayuu cilmiga uu ku furfurayaa. aad sida runta ah qisadaas aaday aniga xanuujisay. ilaahay siduu ugu ogyahay waa ku qandhaday. qisooyinkan markii lii dhibo magacyada anaa bixiyo waa ka fakaraa, qisadan qiimeeyaa, magaca markaas u baxsadaa. magacaas libaaxa dud qobo daanyarta ku dheesho waxa waaye macnaheeda maamada markay waayeel noqotay maamadeena waxaa ugu duceynayay tiri gabadha qisada ii keentay aqli 40 jir iyo xoog 20 jir ilaa hooyadan ka dhig. allahuma aamin ana hooyadii allah iga dhigo. nin walbana waaridkiis wixii ka dhinta allah u naxariisto, wuxuu u nool yahayna ilaahay ha isku daysto. ilaahay waxaan ka barinay kuwa la dulmiyo inaan anaga noqono, kuwa aan wax dulmin ilaahay ha naga dhigo insha allahu tacaala. qisada caawa bilaa waay. baarti 1 maku qoraay, baarti 2 kuma qoraay. habeen walbe sidii aan jaanis u heli karo ayaa libaaxa dudu qoba daanyarta ku dheesho niigu soo gudbin doonaa. janalka u dubayna waa Aamino Dheeman Family Official insha allahu tacaala. sidaas iyo nabadgelyo, cafiya caafimaad, khayr badana.